maxaad ka taqaan 20 maalqabeen ee dunida ugu deeqsisan. Deeqsinimada iyo sadaqada waa waxa ay diinteena islaamku nafarayso, waana waxa xoolaha iyaga barakeynaya. Laakiin aan isku fiirino hantiilayaasha Soomaaliya iyo hantiilayaasha caalamka, farqi noocee ayaa u dhexeeya. Dietmar Hopp waa maalqabeen u dhashay dalka Jarmalka, waxa uuna bartay cilmiga IT-ga, waana milkiilaha shirkadda software-ka samaysay ee loo yaqaan SAP. waxa uu dalkiisa ka yahay qorax soo baxday, isaga oo $1 bilyan ugu deeqay waxbarashada, isboortiga iyo laamaha caafimaadka ee dalkiisa. Pierre Omidyar waa ganacsade haysta 3 wadan dhalashadooda, Mareykanka, Iiraan iyo Faransiiska. waa aasaasaha shirkadda eBay. isaga iyo xaaskiisa ayaa isla bilaabay shirkadda horaantii 1998, kadibna waxa uu sameeyay urur ku deeqa dhaqaale badan, aadna loo mahadiyay. waxa uuna u baxshay Omidyar Foundation. waxa uu ururkana bilaabay hawlo ay ka mid yihiin ganacsi abuur, cunnada, tiknoolajiyada iyo tamarta, waxaana hawlahaasi uu ku bixiyay $270 bilyan oo u dhiganta saamiga uu ku leeyahay eBay. waxaana la sheegay inuu Omidyar bixiyay adduun dhan $1 bilyan. Michael Dell waa maalqabeen u dhashay dalka Mareykanka, waana milkiilaha shirkadda kombiyuutarada ee Dell. waxa uu dhaqaalihiisa ku caawiyaa in badan kaabayaasha bulshada ee dalka Mareykanka, sida waxbarashada, caafimaadka, fanka, dhaqaalaha, arrimaha bulshada. sida la sheego, waxa uu noloshiisa oo dhan intii uu ku jiray ganacsigan uu ku deeqay adduun dhan $1.1 bilyan Mareykanka ah. waxaana isaga oo sii marsiinaya ururkiisa samafalka uu ballan qaaday inuu ku deeqayo $25 milyan si loogu dhiso isbitaal leh 211 sariirood oo ku yaala Austin, Texas. James Simon waa xisaabyahan u dhashay Mareykanka, waana maalqabeen hantidiisa xaqeeda gartay, isla markaana in badan dib ugu celiyay bulshadiisa. waa milkiilaha shirkadda Rentage oo fadhigeedu yahay magaalada New York. waa shirkad qaabilsan tiknoolajiyada, waxaana la aasaasay 1982. maalqabeenkan oo hantidiisu dhan tahay $65 bilyan. waxaa isaga iyo xaaskiisa ay fureen urur dadka caawiya, gaar ahaan waxbarashada. waxay sidoo kale fureen 2 hay-adood ay ugu kala magac dareen wiilashooda oo dhintay si ay ugu xasuustaan. waxay wiilashu kala dhinteen 1996 iyo sanadkii 2003. lamaanaha Simon waxay sadaqaysteen lacag dhan $1.2 bilyan Mareykanka ah. Ted Turner waa milkiile u dhashay Mareykanka, waxa uu bartay cilmiga warbaahinta iyo ganacsiga. kulligiin waa taqaanaan ama daawateen TV-ga CNN. Ted waa milkiilaha CNN, waxaana la aasaasay 1997. waxa uu sidoo kale $1 bilyan ugu deeqay qaramada midoobay si ay ugu caawiyaan arrimaha haweenka, caruurta, caafimaadka, amniga iyo deegaanka. waxa uu guud ahaan ku deeqay adduun dhan $1.2 bilyan Mareykanka ah. John Handsome waa hantiile Mareykan ah. waxa uu leeyahay shirkadda Handsome Chemical Corporation oo soo saarta isbuunyada iyo walxo kale. waxa uu bixiyay $1.2 bilyan oo uu ugu deeqay wax ka qabashada xanuunka kansarka, isagoo oo qayb ka noqday olole ay hormuud u yihiin maalqabeennada kale ee Warren Buffett iyo Bill Gates, oo lagu doonayo in lagu dhiirigeliyo dadka maalqabeenka ah in ay xoolahooda wax ka siiyaan kuwa aan hantida haysan. Li Ka-shing waa maalqabeen u dhashay dalka China. waa deeqsi aad loo ammaano, waxa uuna ka mid yahay ragga ugu taajirsan Aasiya. waa maalgashado caan ah, waxa uu caawiyaa dhaqaalana ku bixiyaa dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, dhaqanka iyo wixii la mid ah. waxa uuna bixiyay oo ku sadaqaystay adduun dhan $1.2 bilyan Mareykanka ah. Mark Zuckerberg waa mid ka mid ah bilyaneerada adduunka ugu da'da yar, waana milkiilaha shirkadda Facebook. dhalasho ahaanna waa Mareykan. waxa uu ku deeqay kala bar hantidiisa, isaga oo ku bixiyay kaabayaasha bulshada iyo caawinta dadka liita adduun dhan $1.6 bilyan Mareykanka ah. isaga iyo xaaskiisa Priscilla horey ayay u bixiyeen $25 milyan oo ay ugu deeqeen
wax ka qabashada cudurka Ebola. Paul Allen waa ninkii la aas-aasay Microsoft Bill Gates, hadda waa milkiilaha shirkad maalgashi oo gaar loo leeyahay. Waxa uuna sameeyay hay'ad la yiraahdo Paul Allen Family Foundation. Waxay dhaqaale badan ku bixiyaan arrimaha caafimaadka adduunka. Waxay ku bixiyeen dhaqaale dhan $2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ayagoo u sii marinaya hay'adaha samafalka. Michael Bloomberg waa hantiile u dhashay Mareykanka, waana aas-aasihii maamulaha Bloomberg Media oo ah shirkad warbaahin oo qaas loo leeyahay, waana duqii hore ee magaalada New York. Shirkadiisa waxay dhaqaale badan siisay jaamacadda John Hopkins, ururka caafimaadka adduunka, ururka naadiyada naafada iyo weliba dugsiga John Hopkins ee caafimaadka dadweynaha. Waxa uu guud ahaan bixiyay $3 milyan oo dollarka Mareykanka ah. George Kaiser waa taajir u dhashay Mareykanka, waana mid ka mid ah 100 qof ee dunida ugu maalqabeedsan. Waa aas-aasaha shirkadda dhaqaalaha ee POC loo yaqaano. Sidoo kalena waxa uu sameeyay hay'adda George Kaiser oo ka shaqeysa caawimaadda arrimaha caafimaadka, diinta iyo weliba bulshada. Waxa uu ku deeqay adduun dhan $3.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Eli Broad waa ganacsade Mareykan ah, waana mid ka mid ah dadka aadka loo tilmaamo guulaha uu gaaray. Waa milkiilaha 2 shirkadood. Waxa uuna sameeyay urur magaciisa xambaarsan oo deeqaha bixiya. Waxa uu ku deeqay $3.3 bilyan oo uu ku sadaqaystay hay'adaha u gudbiya samafalka dadka liita. Carlos Slim waa maalqabeen u dhashay dalka Mexico, waana mucjiso aad loola yaabay qaabka horumarka ganacsigiisa ee dunida saameeyay. Waxaana loogu yeeraa ninkii adduunka lahaa oo loola jeedo hantiile dunida hanti badan ku leh. Waxa uu $4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ku sadaqaystay arrimaha samafalka, asagoo oo markaasi u sii mariyay hay'adaha samafalka. Gordon Murray waa hantiile Mareykan ah, waana milkiilaha shirkadda Intel oo ah shirkad soo saarta qalabka tiknoolajiyadda. Waxa uuna shaqada ka fariistay 2006, isagoo hadda ka shaqeeya arrimaha samafalka. Isaga iyo xaaskiisa oo hay'adooda ku shaqeeya arrimaha ilaalinta deegaanka, daryeelka bukaanka iyo sayniska, waxay sadaqaysteen $5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Suleymaan bin Cabdilcasiis waa taajir Sacuudiga u dhashay. 1957 ayay isaga iyo walaalihii sameeyeen bangi Islaami ah, kaas oo noqday bangiga ugu weyn adduunka ee Islaami ah. Waa qayb ka mid ah qoyska boqortooyada Sacuudiga. 2011 ayuu sheegay inuu qorsheynayo inuu sadaqaysto $7.7 bilyan, laakiin ilaa hadda waxa uu bixiyay $5.7 bilyan. Charles Francis waxaa loogu yeeraa James Bondkii sadaqada, oo loola jeedo inuu aad u sadaqa badnaa. Waxa uu nasiib u yeeshay inuu noqdo aasaasihii Free Shoppers Group oo uu sameeyay kadib markii uu go'aansaday in hantidiisa uu iska wareejiyo, kuna wareejiyo hay'ad haysata adduun dhan $1.5 bilyan oo dollar. Shirkadaas oo taageerta waxbarashada deegaanka, sayniska iyo caafimaadka. Waxa uu sadaqaystay adduun dhan $6.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Asim Brimage waa maalqabeen u dhashay dalka India. Waa gudoomiyaha Wipro Limited oo ah shirkad qaabilsan tiknoolajiyadda, gaar ahaana shirkad talada la wadaagta IT-ga. Waxa uu yiri, waxaan aaminsanahay in malaayiin dad ah ee nala mid ah ee aan xoolaha haysan ay xaq u leeyihiin inay helaan dhaqaale ku filan oo ay ku soo biiraan kuwa ku fekeraya wax soo saarka dunida. Qofna xaq uma lahan inuu hanti la'aan ahaado. Isagoo arrintaasi ka duulayana waxa uu sadaqaystay $8 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. George Soros waa taajir u dhashay Hungary, haystana dhalashada Mareykanka. Waa qoraa, waa gudoomiyaha maareynta lacagta ee Soros. Waxaa lagu naynaasaa ninkii bangiga England jabiyay, Man Who Broke Bank of England. Maxaa yeelay waxa uu qiimo dhibis ku iibiyay adduun dhan $10 bilyan oo lacagta Ingiriiska ah. Waxa uu ka sameeyay macaash ama faa'iido dhan $1 bilyan oo dollarka Mareykanka intii lagu guda jiray xiisadii lacagta ee loo yaqaanay Arbacadii Madoobeyd sanadkii 1992.
waxa uu sadaqaystay 8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah isagoo marsiiyay ururada samafalka. Warren Buffett waa taajir midka ay Soomaalidu tiraahdo taajir isnacay oo loola jeedo xoolo xad dhaaf ah ayuu leeyahay. Hantidiisu waa 88.9 bilyan. waana maalgashada ganacsi oo u dhashay Mareykanka. Wuxuu sadaqaystay 21.5 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Waxa uuna ballan qaaday in hantidiisa 85% uu sadaqaysan doono. Bill Gates waa ka wada dharagsantihiin maalqabeenka caanka ah oo kaalinta koobaad kaga jira hantiilayaasha caalamka. Waxa uu sadaqa ahaan u bixiyay adduun dhan 27 bilyan oo doolar intii uu noolaa. Waxa uu inta badan noloshiisa iyo waqtigiisa geliyay mashaariicda samafalka oo hoos yimaada Bill and Melinda Gates. milkiilaha shirkadda Microsoft oo ah shirkadda ugu weyn ee caalamka ee software soo saarta, dhalasho ahaan waa Mareykan, waana nin dunidu ay si weyn uga haybaysato. intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii yaraa oo aan kaga hadlaynay maxaad ka taqaan 20 maalqabeen ee dunida ugu deeqsisan. halka aad ka daawanayseena waa Warroor Media. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, haddii kalena gambaleelka taabo si warbixinadeena dambe ay kugu soo dhacaan.